jaaliyadda beesha Maxamed Harti oo deeq soo gaarsiisay dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay dagaalkii ka dhacay dhawaan duleedka magaalada Laascaanood deeqdan lacageed oo la soo gaarsiiyay ayaa waxa ka faa'iideystay dadkii ku geeriyooday agoomihii ay ka tageen iyo dadkii ku dhaawac dagaalkaasi deeqdan ayaa waxa loo soo wakiishay culimo u diinka gobolka Sool oo ay ugu horeeyaan Sheekh Yuusuf Haybe Cali Cabdinuur Xaashi Xasan Maxamed Bootaan Jaamac Maxamed Ciise Sheekh Saciid Axmed Cadar ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay Sheekh Saciid Axmed Cadar oo yiri deeqdan noo soo wakiishay walaalaha Maxamed Harti waana deeq meel weyn ka daboolaysa dhibanayaashii aanu gudoonsino shaqaaqadii ka dhacday dhawaan gobolka Sool taasoo ay markaa ahayd dad dhintay iyo dad dhaawac noqday oo u qaybsan laba qolo dhaawac culus iyo dhaawac fudud iyo dad markaa la xiray oo markaa jeelasha ku jira waxaan gudoonsinaynaa galabta amaano naloo soo dhiibay oo ay soo dhiibeen walaalaha beesha Maxamed Harti jaaliyadooda wadanka Mozambique lacagta iyo taakulada oo dhaqaale ahaan iyo dadka dhibaataysan ay u garteen waxay u gacan galiyeen oo u dhiibeen walaalaha u dhashay gobolka Sool ayaa waxa aysan ahayn midda laga qaybiyay gudaha magaalada Laascaanood laakiin waxa jirta deeq ay jaaliyadda Maxamed Harti ee wadanka Mozambique gaarsiiyeen caasimadda gobolka Buuhoodle deeq caynkan oo kala oo dhamay $8,400 oo la gaarsiiyay dhibanayaashii dagaaladu ku waxyeelo lawan xaristo afar Salabaan Ahmed Guuxdhow Lamarshan عبد أحمد علمي ورفا قدومي العكتاس سقال مرحوم وأنا وترى لي متكي وصدح $100 وحنا قدوسين إن متكي هلو دي هاي يدو أن كعطنا سيدا نرقصه وكشيء نقصه قد بنا إن سيدا وقد بيان نحن كبر يا رسول كعيا مجا عيسى وحنا قدوسين إن صدح $100 عبد يوسف أحمد آدم عبدي ورسمع علي عوالة عقالة عبدي ورسمع علي عقالة الله ونحرسته الله يرحمه عوق دومي له عبدي بشير علي عيسى الله ونحرسته أفر سلابان أحمد قحدو شغلو لمرشان عبدي أحمد علمي ورفا إبراهيم إسماعيل محمد عيسى تضبع محمود إسماعيل أو علي فرح عبد السمد محمد أحمد آدم سقال بالله سقال خضر سلابان عبد الله حاشي مرة الله نقلنا ضدك الله صباح العقد صدقة حولنا أنها ماشي أتكسر صارتين وحكى خير بدل إلهي هيدين كبدلو بقولنا أنها ضدكاس waxaanu ka balan qaadaynaa wixii sida ay ugu talagaleen inaan u gudbino sida hadda tawaar ka tahay way waxa naga soo codsadeen in dadka ay gaadho arimaanka lacagtu marin culmo sheegeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryeynaa dadka laga dhintay Ilaahay cawl khayr qabay inuu ugu bedelo oo yaani u gadaal mariyana ka barinaa adduunkan saacad baa lagu tagayaa oo laga tagayaa oo qof walba waqtigiisu noqonaya qodobka kale waxa weeye dadka walaalaha تلفون كان نقول صار الله إن هذا السلاح يبين وجود بيننا إن شاء الله أساس بيجون ودون دونان وحنا لنا هاي مش قصة صارت على واحد كده بدلوا أنا أقول عمال السيادة وصول بالنسبة وجود بيننا إن شاء الله وجزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم جزاكم الله خير السلام عليكم. dadkii lacagta soo ururiyay ehelka ahaa dadka dhintay dadka dhaawacay dadka maxaabiista u soo diray marka hore waxaan u mahad celinaa إلهينا وحنا وبرينا ماشي كوسر وحسن لا يروي بدله. ذكرين أولول S24 TV حرمت مقالة Laascaanood قبل كسول.